Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin waa idin salaamay. Akhyaartii daawanayso kusoo dhawaada channelkayga. Maanta waxaa idin wadaa faa'iido cusub oo aan rabo insha Allah inaan ka wada faa'iidno. Maanta waxaan ka hadlaa fiidiyowga waxyaabaha lagu garto inay soo dhawaato foosha ama waqtiga dhalitaanka oo saxda ah. Macnaha waqtiga ugu soo dambeeyo intaan la dhalin waxyaabaha la dareemo insha Allah rabaa inaan ka hadlo. Waxaad dareemaysaa xanuun aad u weyn iyo xanuun oo ah xanuun isdaba xiga, macnaha oo waqti yar u dhaxeeyo labada xanuun. Waqti yar inuu u dhaxeeyo waxaa ku tiri kartaa daqiiqadooyinka. Haddii lagu qabto hal mar xanuunka oo ku qabto cabaar oo ku hayo, haddana markii uu ku deeyo daqiiqadahaas oo ku deeyay marka labaad xanuunka labaad markuu ku qabto waa inay daqiiqadaha islahaadaan. Markii adoo ahaa 5 daqiiqo kan kalena inuu ahaado 5 daqiiqo, xanuun isku xigxigo inuu ahaado. Markaa sidaas dareentid xanuunka inuu isku xigxigo haddana daqiiqado oo isleh oo yahay, waxaa ogaataa inay soo dhawaato waqtiga dhali lahayd. 2 waxaa ah inaa soo daataan biyaha cunuga oo ku jiro. Biyahaas oo ah biyaha ku cadeynaya inuu babyga soo dhawaado fooshiisa, inuu macnaha banaanka imaado. Marka biyahana waxaa waaye dad qofba nooc waaye. Dadka qaar hal mar ay soo wada daataan, dadka qaarna maxaa lahaye marba kiis soo daadanayso. Marka biyahaas hadday soo daataanne waxaa cadeyn buuxda ku ah inuu waqtiga dhalitaankaada soo dhawaado. Lambar 3 waxaad dareemaysaa xanuun aad ku hayo oo ah dhanka dhabarka aad ku xanuunayo. Dhabarka hoos qaybta u dambeyso waxaa ka dareemaysaa xanuun aad u weyn sida inuu culays ka saaran yahay oo kale, ama xanuun oo qaab adiga aadan hadda la sheegi karin oo xanuun culays camal ah. Marka haddii dhabarkana saas lagaa qabto oo labada sababood aan hor u soo sheegnay aad isku aragtid, waxaa hubsanaysaa markaas inay soo dhawaato waqtiga dhalitaanka. Lambar 4 waxaa isku arkaysaa qoyaan oo adiga ka socdo. Taasna ma ahan inay ahaato maalintaas aad dhalaysid. Waxaa laga yaabaa isbuuc ka hor inaad isku aragtid. Mar walba kiis isku aragtid, qoyaan isku aragtid, marba hadday soo bilaabato. Taasna waxay ka mid tahay cadeeman oo laakiin aan ahayn 100%, laakiin cadeyn la dhihi karo inay soo dhawaatay waqtiga dhalitaanka. Lambar 5 waxaa waaye inaad dareentid labo ama in caloosha ay ku fududaato ay kugu dhac shuban. Marka sidaa idin sheegay, haddii aad isku aragtay intaas labadaas shubanka iyo labalabada waxaa keenaya xanuunka tirada badan. Marka haddii aad isku aragtid ma la dhihi karo 100% waxaa waaye fool ama waqtiga dhalideeda soo dhawaaday, laakiin waxay ka mid tahay sababayaasha oo lagu ogaado. Marka haddii intii aan hor u soo sheegay aad isku aragtid kuwaana kugu darsoomaan, waxaa markaas noqonaysaa 100% inaa hubtid inay waqtiga dhalitaanka soo dhawaaday. Marka waxaan ku leeyahay inaad diyaarsatid dharkaada iyo boorsadaada iyo waxaada aan isbitaalka isku wajahdid insha Allah. Dhammaan intii fool sugaysan oo hadda i daawanaysan waxaa idin leeyahay Ilaahay ha idin fududeeyo insha Allah. Dhammaantiinna waa mahadsantihiin daawashadiina.